deegaanka beer waxa uu 30 kiiloomitir u jiraa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waana dhul beereed sal balaaran oo ay waqtiyo hore ka soo bixi jireen dalagyo kala duwan hase yeeshee haatan waxa uu noqday mid gebi ahaanba carrada ka dismay mana jiraan hadda dalagyo ka soo baxa marka laga reebo hadhuudhka iyo xabxabka oo waqti kaliya soo baxa beertani aanu booqanay ayaa waxay ka mid tahay beeraha ku yaala deegaankaasi waxaana lagu beeray geedka cambaha kaasi aan wali yeelan wax soo saar sida uu noo sheegay mas'uulka iskala beertani inkastoo ay biyaraani ka jirto deegaankaasi waxa isku dayay in wax soo saarka beertiisu ay hirgasho waana kan Xuseen Cumar Muuse oo ku magac dheer Munhaweys oo ka hadlaya arrintaasi nasiib darro laakiin waxaan la kulmay xilligii abaaraha ay beertu la kowsatay oo ay la kulantay iyo biyo la'aan imika geedkani wuxuu jiraa hal sano waxay ahayd imika in midhaha gurista laga bilaabo laakiin biyo siirkii ku dhacay awgeed baa sababay geedkii inuu noqdo markaa hana dhiman hana noolaan midhaha ku dhigayna ay noqdaan midho yaryar oo qajala ah laakiin imika biyaha imika maraya aad arkayso waa biyihii dooxa waxay inoo jiraan kiiloomitir intaa waxaanu isku soo hawlay maranu gacan soo jeexno iyo tuubooyin ilaa 500 oo mitir gaadhaya inaanu istaba dhigno marka imika biyahan maraya meesha waa biyihii daadka dooxa marayay waanu ka soo xidhiidhnay masaafo 1 kiiloomitir ah markii 500 oo talaabo ay noo soo gaadheen dabadeedna aanu isticmaalay Johnson iyo beebka aanu isticmaalo intaas marka aan jirin biyahaas aan jirin waxaan isticmaalaa biyo barkad ku jira ama booyad aan ku soo dalacnay dabadeedna taangiga halka ka cad baanu saarnaa tuubooyinkan yaryar ee meesha maraya ayaa markaa biyaha soo qaada rajaynta laga ka qabtay in beertana sii jirto iyo inay wax soo saar yeelato aad baan uga rajo qabaa dhirta babayga ee ku jirta waxa weyn 700 oo geed adigu ilaa 200 waa labay noqonaysaa 500 oo geed oo dhadiga hadii markay isku kacaan waxa weeyaan waa laga hirqanaya kuma koobno oo kaliya beerashada dhulka hase yeeshee waxa uu Xuseen ka faa'iideystaa malabka shinnida isagoona u sameeyay goobo uu ugu talagalay inay shinnidu malabka ugu sameeyso inkastoo aanay waqtigani malab u sameyn haddana waxa uu rajo ka qabay inay malab u sameyn doonto shinnidani imika sida xoolaheennaba ama dalkaba abaarta u saameysay bay iyadana u saameysay shinnidani imika waa shinni xayeesha hase yeeshee hawsheedii dhaqan ahaaneed iyadu way wadaa awlalkan imika waxa weeye waa awlal dhal ah godadkan daboolan waxa dhal baa ku daboolan hadee xog maayo laakiin maadaama daaqida uu ku yaraaday waxa weeyaan xataa dhasha awlalkan wuxuu ahaa inay isugu jiro dhal iyo guush iyo malab laakiin imika waa dhal faaruq ah wax kale oo u heliya aan jirin taasi waxay qayb ka tahay daaq la'aanta marka baashada aan wax dhabaq ah oo ay soo heshaa aan jirin marka wax soo saar ah imika intii labadii sano u dambeysay ma ay lahayn way xayeeshtay sida xooluhuba ay daaq ugu baahan yihiin iyaduna daaq ugu baahan tahay imika dabadna anaguna waxaanu ku fooganahay bal sidii faraawil iyo dhiriyo wuxuu loogu beeri lahaa iyaduna waxay ku foogantahay hawsheedii asal ahaaneed inay wada waata marka hawsheedii bay imika wada waa maxay sababta shinnida marka la soo qaado tusaalahan baalkan oo kale oo dagaalami jirtay dadka cuna jirtay maxaa sababay inay shinnida dagaalami weydo sida u hayso waxa sababay inay shinnida dagaalami weydo laba qodob koowaad waxa weeye shinnidana waa shinni la maamulo oo gacanta lagu maamulo marka waxay baratay la dhaqanka maamulka iyo dadka waa rabaayad marka dhinac horta waa ka rabaayad dhinaca labaadna waxa weeye shinnidu waxay dagaalantaa oo dagaalka ugu wacan mararka qaarkood ama inta badan marka waxay difaacato haysato ay dagaalantaa laakiin tan maadaama aanay malaba difaacdaba aanay haynin waxa weeye dagaalna isku hawlimayso si kastaba haatee deegaanka beer oo caan ku ah wax soo saarka beeraha ayaa ka baxay khariidada wax soo saarka tan iyo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaana sabab u ah dalagyadii kala duwan ee ka soo bixi jiray deegaankaasi oo dhamaantood dibadda laga keeno iyo shacabka deegaankaasi oo waayay taageeradii ay ka heli jireen xukuumadda Shaafici Maxamed Ibrahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer